بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر دواد برنامج كان يدب كهذا القيبتن وحين نكوي جدونا dhinaca magaalada Laascaanood iyo wararkii ugu dambeeyay 24 saacadood ee la soo dhaafay magaaladaasi ayaynu eegi doonaa magaalada Laascaanood sida aad la socotaan maalmihii ugu dambeeyay waxa ka dhacay rabshado iyo banaanbaxyo ay sameynayaan dadka deegaankaasi isla markaasina ay rasaas nool iyo dagaal toos ah kaga jawaabeen ciidamada Soomaaliland iyagoo ku sugan magaalada Laascaanood hadaba bal arintaasi iyo xogihii ugu dambeeyay ayaynu eegi doonaa qax xoogan ayaa laga sheegayaa magaalada inuu ka bilowday oo dadkii shacabka ay guryahoodii isaga wada qaxeen arrimo kale oo magaalada Laascaanood iyo xogaheeda ku gadaamana waa idin hayna hadii rabbi qadaro waxa ila jooga saaxiibkay Barreel Kacse oo geestanaga fadhiya Barreel ama santahay nuur dhawaadashana salaamayna way Barrow hadda bal waxaad ka warantaa Laascaanood maxaa u dambeeyay nuur ma santahay mar kale Laascaanood horta xaaladeedu wali waa culus tahay inkastoo wararka naga soo gaaray maanta ay sheegayaan in dhagax tuurkii faraha badnaa iyo barnaamijii iyo culayskii faraha badnaa iyo xiisadii maalmihii dhaway taagneed aan muddo xogaa inay hoos yar degtay maanta oo dhagax tuurkii faraha badnaa uu san jirin haddana waxa weeye cimil galba la isugu jiraa meesha oo dhinac walba fiiska la isugu galay fiiska la isugu jiraa waa la isdiyaarinayaa magaalada dadkii maatida ahaa ee tabarta daraana wararku waxay sheegayaan inay ka baxeen oo ay ka qaxeen maadaama dhowrkii maalmood la soo dhaafay magaalada culays badan uu ka jiray oo dhagax tuur iyo rasaas nool iyo dad dhimanay iyo kuwa dhaawac ah iyo maartay xitaa noloshii bulshada waxyaabihii ay ku noolaayeen ay quutul duruuriga ayaa aad u yaraaday baa maadaama magaalada ay dhibaato ka socotay wax soo galaya oo qumana aysan jirin sababtoo markii magaaladu ay nabad ahayd de ganacsigii baa socday oo maartay isu kala gooshay oo magaalada badeecadii iyo maartay wax walba ayaa kala socday oo noloshii bulshada ayaa caadi ahayd laakiin marka hadda intii hadda dagaalku uu socday xaaladdu ay kacsanayd waxa aad u yaraaday ganacsigii iyo isu socodkii gaadiidka iyo dadweynaha iyo waxa la dhihi karaa marka waxa aad hoos ugu dhacay marka noloshii bulshada oo hadda waxa weeye waxa xitaa gabaabsi ah maartay wixii dadku ay ku noolaayeen ee ay cunayeen marka xaaladdu wali waa adag tahay magaalada sida muuqata nooc iska bandow ah ayay maartay ku jirtaa adeegii internetka iyo isgaarsiintii waa kii shalay Soomaaliland ay jartay aad buu waxa u yar maartay xogaha rasmiga ee meesha laga heli karo marka laga reebo dadka qaar oo ehlooda meesha ay ku sugan yihiin oo la xiriiraya oo qaarkood aan wacnay oo noo xaqiijiyay in inta badan oo qaarkood ay leeyihiin shirkadihii isgaarsiinta iyo kuwii korontada waxay ku biireen dagaalka looga soo horjeedo ama lagu dhibaateynayo dadka reer Laascaanood ay leeyihiin shirkadihii baa maartay korontadii waa la jaray isgaarsiintii waa la jaray inta wixii ka horeeyayna waxa dareemaysay in wax yar oo dhacdo oo ka dhacda magaalada Laascaanood ba in si dhaqso ah oo daqiiqada ama maartay ilbirqsiyaha lagu helay hadda se xogtu way koobantay oo aad bay u yartahay laakiin waa la helayaa inkastoo oo wararka qaarna ay sheegayaan in ujeedkii markii hore ay ka lahayd Soomaaliland ee ahaa in maartay xogaha meesha aan la helin maadaama ay wararka magaalada iyo xiisadu ay aad uga faaftay adduunka iyo baraha bulshada iyo Soomaaliya dhexdooda aadna loo hadalhayay ay doonaysay in maartay hawshaasi xogaha hoos loo dhigo xogaha laga helay magaalada tan iyo inta xal laga gaarayo taasi wax u muuqatay sida wariyaasha qaar ay taminayaan in ay fashilantay oo xogihii iyo xaalka halka uu marayo mar walba wali la helayo oo aysan maartay suuragelin Soomaaliland ama aysan ku guuleysanin in ay xadido macluumaadka iyo xaaladda meesha ka jirta in dadku ay helaan marka magaalada wali xaalkeeda waa uu kacsan yahay dad kamid aha dadka halkaasi maartay la xiriiray saaka oo maanta la xiriiray oo aan wax ka weydiinay oo waliba dadka aslaankaas ka soo jeeda waxay noo sheegeen in dhagax tuurkii faraha badnaa ee maalmihii la soo dhaafay jiray uu san jirin laakiin xiisadu wali ay jirto oo ay kacsan tahay oo maartay dhufayska la isugu jiro walina aysan jirin wax hal ah oo maartay laga gaaray way marka la fiiriyo maanta hadda xaaladdu siday tahay inkastoo aad soo sheegtay dabcan maanta taariikhdu waa 3 bisha waa labada bisha ilaahdo labada bisha January sanadka cusub 2023 ilaahay ha nooga dhigo mid khayr qabe inkastoo ku bilowday in iyadoo Laascaanood ka daay bal hadda waxaad ka warantaa dadkii shacabka ahaa dhagaxaanta watay
ciidamada Somaliland hor fadhiyay ay gidaarada iyo luqada isku ceyrsanayeen iyagu ma guryahay kala galeen miyay qaxeen xalku say ma qaxin waxa weeye horta marka la fiiriyo sool heerka hadda ay xaaladeeda iyo xiisadeeda ay gaartay weligeed intii ay wax ka dhacay maysan gaarin sool oo dhanba waay la saaranna waa isdaranto waa xuduntii iyo ubuucdii meeshii maartay wax ka dhacay weey dadkan waxay moodaa in ay hadda ay gaareen heer ah in maartay xal inta looga helayo xaaladihii soo noqday iyo dhibaatooyinkii iyo dilalkii la saacanood inaysan arintani aysan joogsanaynin nurow sida dadka gobolada ka soo jeeda markaad fiiriso waa in xaggan Somaliland bay jirtaa in xaggan waxay jirtaa maartay in Somaliland bay jirtaa in Puntland bay jirtaa marka haddii intii waxa weeye Puntland jirta ay isku daydo in ay waxa weeye maslaxa ka shaqeyso xagga Puntland iyagoo maartay ka socda ah intii kala ya xanaaqaysa doomareys marka xitaa wuxuu ii sheegay in hadda kamid ah dadka halkaas ka soo jeeda oo aan arinta sool wax ka weydiiyay in odayaal ay maartay doonayso Somaliland inay isku duudo oo ay maartay hormuud u noqdaan wada hadal dhaxmar bulshadan kacsan iyo maartay Somaliland isla markaana wada hadal lagu xaliyo oo waxa uu leeyahay xitaa waxa hadda laascaanood ku sugan wasiirkii arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin iyo wasiirkii warfaafinta ee Somaliland Salaaman Koor oo filayo soo laftigiisu inuu goboladani ka soo jeedo meel dhaweyn hadlay oo sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay in wada hadal Kaahin iyo Koor yimid laascaanood Kaahin iyo Koor laascaanood yimaadey baa la yiri oo waxay wadaan abaabul iyo in odayaal ay maartay la hadlaan odayaashaasina ay dhexdhexaadiyaan maamulka Somaliland iyo maartay dadkii shacabka ahay magaalada ee kacsana si maartay xiisadan loo qaboojiyo marka dadaalkaas bay wadaan baa la yiri markaas magaalada ku sugan laakiin waxa aad u yar baa la yiri maartay dhaqdhaqaaqooda iyo maartay in ay helaan dad ku filan oo la kulmo oo hawshooda iyo maartay waxa ay rabaan u fuliyo marka dadka magaalada de boqolkiiba wax hadii kale way kacsan yihiin oo way maartay hawsha ka diidan yihiin waxaan aan waxa weeye arkay oo maartay qoraalada qaar dadka reer Somaliland caadi dadku waa isku mid maaha oo dadku beela waay dadka hadda laascaanood iyo sool iyo sanaad waa beel way dadka qaarkood reer Somaliland yaa waxay leeyihiin oo ay maartay uga soo horjeeda xitaa maamulka ama maartay xukuumadda Somaliland meesha waxa ka socda oo ay leeyihiin annaga Somaliland ama qadiyada Somaliland waan aaminsanahay in la ictiraafo inay dal noqoto laakiin sida aysan iyaduba Somaliland aysan u rabin wax aysan rabin in lagu qasbo yaana annaguna u rabin in dadka reer Sool ama dadka reer maartay laascaanood ama dadka goboladana lagu qasbo wax aysan rabin abwaan weersama kamid ah dadka qoraalkaas qor waa artay dabcan aad ma maasanta marka oo dadka lagu ixtiraamo rabitaankooda iyo wax ay doonayaan abwaanku waxa uu duleeda hadalkiisu ahaa Somaliland waxay diiday inay Soomaaliya kamid ahaato marka sool inay Somaliland kamid ahaato hadii diido in lagu qasbo ma sida Somaliland aysan u rabin in Soomaaliya lagu qasbo in limidooda markan waa in Somaliland ay maartay aysan qasbin oo ay maartay aysan ku qasbin oo aysan Somaliland uga dhigin dadka reer laascaanood inay qasab u dhigtaan in Somaliland ay ka mid noqdaan sababtoo ah dadka marka fiiriso ma rabaan waana dad macquul gal dad Soomaaliya dadka marka fiiriso waa dad macquul gal hawi marka kaliya ma dadka aragtiyadan qaba oo maartay xaaladda marka la fiiriyo qaba dadkan inaan maartay loo isticmaalin xoog iyo awood oo maartay lagu ixtiraamo rabitaankooda iyo waxa ay doonayaan hadii ayagu ay doonayaan in Somaliland ay ka sii noqdaan in tabashadooda iyo waxa ay rabaan la xaliyo hadii aysan doonin dadka inaan la qasbin sababtoo ah dawlad waxay dawlad ku tahay dadka shacabka ayaa dawlad ah shacabka hadii waxa uu san rabin lagu masuuliyin karo hada Soomaaliya waxa ka socda Soomaalida arag hawlgallada ka socda هذا الدولة الشعب كيف أديكسنيسا واجه ولا أنت المجري دولة ما أنت شعب قاعد توصل لشقين لان تاير ميسن ركتين هل تقول أنا ميسن حريسين مركز الدولة سيدا وشعب واحد مركز وإن ضد كان لو احترام ربيتان كوضا يعبشوا ضد بدن وأرنت هالسقبة أي جرا وأنا ضد ومعقول سن مركز ضد كولي واقع سين هو ضد كأنتي حوج لهيدا أود لهيدا التمر أنا جل هيدا
magaalada maartay dhaqdhaqaaqi xiisada ka waday ka soo horjeeday dilalka iyo dhibaatada socota wali magaalada waa ku sugan yihiin ma aysan ka qeexin waxoodii ba haystaan qof walba wixii uu awoodo ayuu haystaa laakiin laga awood badan yahay aad iyo aad dadka caadiga ah hooyooyinkii iyo caruurtii kale iyaga magaalada ku sugnaa waxaa la leeyahay qaxba bilowday magaalada banaanka looga baxay bal arintaa ka waran hadda nuurow si lagu joogi karo magaalada ma jirto gabagabo waayo magaalo hadii hamel la isku ceyrsanayo xageed ku noolaan ilaan hadda muqdisho markii wax ka dhacaan muqdisho waa magaalo weyn weeye waxaa laga yaabaa meeshan inuu qarax ka dhaco inta kale magaalada inay nabad iska tahay oo is wax dhibaa ka jira midka magaalada dhinaceeda kala degan waxaa laga yaabaa qaraxaas inuu maqlayo laakiin uu dareemayo in magaalada meel ka mid ah ka dhacay laakiin aysan saameynin isaga oo reer muqdisho way la qabsadeen hadda dhacdooyinka magaalada ka dhaca in badan bay maartay la darisaayeen reelaanaas caanood dee arrintan dilalka waa jireen laakiin xaaladda hadda halka marayso kale weligeed maysan gaarin marka xabad la isku erinaya jilid la isku erinaya ganacsi aan furnayn noloshii bulshada ayaa maartay qiiqiil gashay marka dadku way ku qasban yihiin inay xitaa intay magaalada ka baxaan qof walba qofii xitaa bakeeri mise gaa helaya inuu duurka iyo geedaha hoostooda inuu ku karsado marka intii tabarta yarada iyo intii maartay awoodda aan haynin ee dadkii birmageydada ahaa ee aan maartay ordi karin xitaa waxaa la leeyahay magaalada way ka carreen oo way ka qeexeen aad baa maasantahay ilkacsow waxaa kaloo iyadana jirta nuurow in deegaano kale oo ka mid ahaa maartay gobolkan sool oo taleex iyo maartay boocama iyo xudun ay ka mid yihiin in iyadana waxa weeye mudaharaadyo hadda ay ka socdaan oo aad ugu jilay waliba magaalooyinkaasi oo iyadana looga soo horjeedo dhibaatada magaalada laascaanood ka jirta oo ay ku dalbanayaan in maartay dadkan waxa weeye waxa ay doonayaan iyo tabashooda in la xalliyo bal haade wada hadal hal gaaro ilkacsow maxaa hortaagan ciidamadan magaalada dadka ku dhaxaysanaya ee xabadeynaya ee dhashiika la dhexordaya magaalada inay magaalada koono uga baxaan xeradooda ku noqdaan dadkan ha mudaharaadaan dhagaxay tuuri karaan ha tuuraan inna magaaladiis ma jijibinaya meelahaas ay cadhadooda muujinayaan dadka inay cadhadooda muujiyaan isu soo baxaan waxay rabaan fartay rabaan qoraan ciidamaduna banaanka kor ay ka daawadaan maxaa diiday malaha Puntland inay soo gashay biyada ka baxan magaalada ile magaalada marka la fiiriyo dadku boqolkiiba boqol hadda waxa weeye xaaladda halkii taanta marka la fiiriyo Soomaaliland hadda maamulkeeda kuma qanacsan العام ما كان فيرنا حتى حالك سيد وياي حقيقة كم قناعسنا زمان واجري كلام شخصيات فرق كتيرسها ومارة الغيا بدأ إني سلام على الكورة كلام حلال يمارة وكان قبان ومارة دنينا إن شعب كان أي سمالا سيهوس جوجان والغيا با لكن دتكو أنت طبعا أغلبية مرة سمالا ماشي سيما مش مركا سمالا وعدوني أنا ماشي سيما مش waxa kaliya ku soo marka marka waxa weeye in ay maartay xoog meeshii ay ku joogto oo magaaladii ay maartay hawlgallo ka fuliso oo dadkii la qabto xitaa waxaad arkaysaa oo xogaha naga soo gaaray ay sheegayeen in ganacsiyadii xitaa dadkii ay xireen oo ay deen in la furo laakiin ay ciidamadii isku dayeen Soomaaliland in dadkii ay ku amraan in xoog lagu furo laakiin laga diiday sababtoo hal ruux intaad qasabtood maartay waxa weeye gujigujayso waa laga yaabaa hal dukaan in la furo kiina ma furaan dad soo dhaaqado waa la xiri marka waa la xiray halka marka waxay ku tusinaysaa marka heerka baashu ay gaadhay oo maartay dadku hadda ay taagan yihiin waa maartay ama guul ama geeri waay dadka marka hadda waxa weeye awal hore waxa la oran jiray war dadku may dhibka iska dulqaadaan away waxa weeye hadda waxa moodaa in dhacdadii ugu dambeysay iyo dilkii ugu dambeeyay ay madaysay xitaa guud ahaanba dhaqankii iyo culimadii iyo in badan oo siyaasiyiin kamid ah iyo dhalinyaradii iyo waxgaradkii saddexdan gobol ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn xitaa nuro waxa jirta oo aan maartay noo sheegay oo dad goboladaas ka soo jeedo oo aan la hadalay noo sheegeen in ismadii maartay dhaqanka gobolada ka soo jeeday ay maartay ku baaqeen in la sameeyo ciidan way arinta ismada waa iman doona barnaamijka dambaan xogta ismada iyo sidoo kale xoog kale oo fara badan ba ku soo gudbin doona oo la xiriira magaalada Laascaanood ilka case aad buu mahadsan yahay intaasan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo qodobkan waxaan naga xusuusina marar badan ayaa laga yaabaa inaad aragteen barnaamijka socda oo adinku uu ka dhaxyeerayo ku talagal ma xilliga aan inta badan barnaamijyada duubno iyo xilliga adinka salaada duhur ayaa isku aada masaajidkuna waa noo dhow yahay nagama foga marka waa ka cudur daaranaynaa in marar kala duwan aad ka maqasheen adinkaasi inta aan ku soo gabagabeeyo qodobkan inta aan qodobka labaad oo isla Laascaanood ku saabsan isugu soo noqon doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh